بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan oo wacan meel kasta adduunka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan aan ku kashifi doono been ay sheegeen rag raba inay Soomaaliya burburiyaan ama ay rabaan inay been ku qaraabtaan ay cadaawad ku dhex abuuraan shacabka Soomaaliyeed dhexdooda waxa soo shacab baxday video la leeyahay waxa laga helay madaxweynaha Soomaaliya loo doortay Farmaajo oo weeraraya Somaliland asagoo leh Somaliland aakhira ayaan u diraynaa waanu baabi'inaynaa meel xun ayaanu ka tuuraynaa walaalayaal arrintaas markaan maqlay waan rumaysan kari waayay sidaad iga barateena waxaan galay baaritaan waxaan soo helay khudbad dheer u jeediyay madaxweynaha hadda Soomaaliya Farmaajo oo uga hadlay arrimo fara badan wuxuu ka hadlay laba arrin Somaliland iyo Al-Shabaab Somaliland wuxuu ka hadlay si aad iyo aad u qurux badan oo fiican oo qof walba oo Soomaaliya oo qalbi nadiif leh uu bogayo wuxuu ka hadlay Al-Shabaab sidoo kale baaq fiican ayuu diray si fiican ayuu uga hadlay wuxuu ka hadlay maasuqa marka waxa la suubiyay waxa la jarjaray erayadii khudbooyinkiisi qaybtii uu Somaliland kaga hadlay qaybtii maasuqa ka hadlay iyo kuwa Al-Shabaab kaga hadlay intii ayaa la isku daray markaas ayaa waxa laga soo saaray wax aad iyo aad u falxun waxaan idinku bishaareynayaa inaan dhageysiyo khudbadiisii oo buuxda kadibna aad dhageysataan been abuurka laga suubiyay waalaheen Somaliland waqooyi dadka degan in la fariisto waxa ay ku qanacsan yihiin si midnimadii loo sugo in la siiyo maxaa yeelay annaga midnimada noogu weyn wax walba in lagu qanciyo wax alla waxay rabaan in lagu qanciyo maxaa yeelay waxaan ka hadleeno ma aha hal sano iyo 4 sano ma aha 30 sano ka hadleena iyo wax ka dambeeya 100 sano iyo carruurtina ka hadleena marka dadkaas inaan soo dhaweeyno waalahena oo negotiation dhab ah la galo oo lagu qanciyo wax alla waxay raali ka yihiin si iyaga naftigoodu ay qayb uga noqdaan midnimada iyo horumarka Soomaaliyeed qoladan nabadiidka oo aan ku magacaawno Al-Shabaab iyaga naftigoodu waa dhalinyaro wiilasheena ah oo la khiyaamay oo been loo sheegay inaan soo celino aan cafis u fidino oo aan iraahno nolol iyo mustaqbal yaa leedihiin hasku keen qarxinna hasku keen qarxinna idinkana naar ha gelina annagana adduunka noo aqoonsanina inaan raahno aniga markii aan joogay 300 yaa markiiba noo timid oo aan mushahar u bilawnay oo meeshii sarintii aan dejinay markaan ka soo tagay 3 bilood ka bacdina kuunay gaareen hadda meel ku dambeeyaan lama yaqaan shacabkii waxay aamineen dawladdii markii de shacabkii dawladda is wataan shabaab iyo cid kale oo Soomaaliya rabta inay dhibto uma istaagi karaan ma hor istaagi karaan ana idin sheegay waxa lagu hor istaagayaa markii annagu waan kala qaybsanahay qabiil u qaybsanahay markii dawladdii iyo shacabkii kala qaybsan yihiin markaasi dawladdaas nafteeda san xigmad iyo talo aysan haynin ay ku hanato qulubta shacabka markaasi hadii cid walba oo cadow kugu ah waa ku dhibaysaa marka dhalinyaradaasi inaan saas aan halkooda aan halkaas ka raadino waxa soo haray dawlad waxay ku shaqaysaa dhaqaale markii shacabku aamino dawladdan inay tahay dawlad daacada dawlad run badan dawlad u shaqeynaysa ee amaana ah shacabkii way la shaqeynayaan waa xaqiiqo way dawladna waxay ku shaqaysaa revenue dhaqaalaha shacabka laga aruriyo iyo dawladdu ku shaqaysaa lacagta kama timaado cirka kama timaado geed lagama guro annaga hadda halkaan aan fadhino waxaan bixinaa mushaharkeena 50% 30% income tax aan u bixinaa 20 kalena waxaan ku bixinaa hadda soo meeshaan ma fadhino waxa free ah dalkan oo kaliya waa hawada hadda soo halkan ma fadhino dawladdan u shaqeynaa maxaa yeelay meeshaan lacagan ka bixinay nin walba soo baxay wuxuu kharash gareeyay maxaan ku yiraahdaa wuxuu kharash gareeyay shiidaal
waa qaadanaysaa shidaal kala ku shubanaysaa dawladda lacag siinaysaa haddana tagsaa lagaa jaraa cuntaan cunna hadda halkan cuntadii ninka odayga ah wuxuu nagu jaajgareeyey canshuur isna canshuurta dawladdu siinayaa fartaa qaado dawladda lacag siinaysa laakiin maxaa hesheen waxaa hesheen amni waxaa hesheen iskoolo free ah waxaa hesheen caafimaad waxaa hesheen jidad iyo buundo aan jabaynin waxaa hesheen nolol fiican hesheen in shacabka Soomaaliyeed laga dhaadhiciyo marka dawlad ma shaqeyn karto haddaadan taageerin hawada kaliya free ah inta kale waa inaad bixisid lacagta lacagta aad dhiibtidna oo canshuurta ahna aday kugu soo noqonaysa $1 oo laga xadaayo ama qof jeebkiisa gashanay ma jiro gacanta laga goona qofkii qaato iska kaftamaya ما آخرا ندرنا آخرا كدرن مركا قفكي ومدة وحي لقى سو أروري قاتا وأن شرفت كدا عدي وأن إيمان حن ومدة كبر إحنا ولا نكره وأن ملح لقيه ما شاء الله هذا الكلمة دحوينها وحوا هذا الآدي هذا قرحان ورنتي قف كستو صومالي أهمل كستو صومالي هكجوجا أما قبل كرب هودا الشيء أما صومال لأن هذا أما مالك له كي ماذا هذا الوحوها معقولة وما تقنا الله رياقه maxaa yeelay wax fiican ayuu ku baaqay markii madaxweynaha sidaas u hadlay oo uu ka hadlay Somaliland oo uu ka hadlay al-shabaab oo uu ka hadlay corruptionka ayaa waxa la suubiyay waa la isku jarjaray oo waxa laga soo saaray hadalkan foosha xun ee la faafiyay ee lagu sheegay sirta bal ila daawada xaqiiqdana markaas ayaad ogaan doontaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un Somaliland waqooyiga dadka degan iyo cid kale oo Soomaaliya rabta inay dhibto uma istaagi karaan ma hor istaagi karaan ana idin sheegay وين ملح لقيه ما آخرا ندرنا آخره هذا ماله كنا بيان لما يقال وحفري كوي ماذا مجران سومالا وغوي دتك دقن يعيد كلو صوماليا ربط إني دبتو وما يستاهل كرا نور يستاهل كرا أنا يدين شيء جاي وين ملح لقيه ما آخرا ندرنا آخره هذا ماله كنا بيان لما يقال وحفري كوي ماذا مجران سومالا وغوي دتك دقن يعيد كلو صوماليا ربط إني دبتو وما يستاهل كرا نور يستاهل كرا أنا يدين شيء جاي وين ملح لقيه ما آخرا ندرنا آخره هذا ماله كنا بيان لما يقال وحفري كوي ماذا مجران لا إله إلا الله ولا ليال وحا صوبح رق ربا إني نوع اسكو قرابتان ورق ربا إني صومالي كلا ديلان ورق قبيالة يقولون هيسو وحان لا ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى كعب صدا وحان كلو شعبك الصومالي تكبر رجينيا وحيالان نوع اسو كلا إني سنبونبونين رق وحان صوبنا ولا ليال وحكو قرابتان وحلي هذا كليك أيكو حساب تمان ووحي ku xisaabtamaan wax la yiraahdo xayeysiiska ay been ku sheegay laba marka laba jeer ba been way ku qaraabanayaan mar ay dadka sirayaan oo ciwaan been suubinayaan iyo mar ay been ka shaqeeyeen waxa la waqtiga aad ku isticmaasheen inaad codkaasi sugeysgeysaan oo isku jarjartaan danta ummadda Soomaaliyeed ku isticmaala sidoo kale waxaan leeyahay walaalayaal aysan dadka warxumata shilka ah ee website-yada leh ee fiidiyowyada iska soo duubaya aysan ina marin habaabinin waxaad ogaataan inaad dareenkiina xukuntaan waxaad ogaataan hadalkan macquul inuusan ahayn qof mas'uul ah oo Soomaali ah inuusan macquul ka ahayn inuu dad ugu khudbeeyo mid kale walaalayaal wuxuu ku leeyahay sir la helay xagee sir ka tahay waa shir weyn oo qabtay shir jaraa'id ama dad u khudbeynayo ka jeediyay ajalkan wuxuu soconayaa 38 daqiiqo ayuu soconayaa ajalkaas la soo jaray marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed weyna ogaatay waa fashilantihiin qabyaalada hala joojiyo madaxweynaha haatan joogana waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryaynaa inuu xilku sahlo inuu mataqaanaa ummadda cadaalad ku hogaamiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka dhigo nin mataqaanaa Soomaaliya ka samata bixiya dhibaatada ku jirta sidoo kale waxaan leeyahay idinkana ha isku daalinina waanu niga daba shaqeyn doonaa markasta aad been sheegtaan xaqiiqda ayaan keeni doonaa walaalkii Naasir Cadceed idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh